Waxaan filayaa inaad marar badan aragtay thumbnail noocan ah. Haddaba waxaan ogahay ama maskaxdaada ay isweydiisay sidee loo sameeyaa. Thumbnailadu waxay qayb ka qaataan in channel-kaaga amaba muuqaalkaasi uu helo views fara badan. Haddii la isbarbar dhigo thumbnail qurux badan iyo muuqaal qurux badan, dadka inta badan waxay fiiriyaan kaliya thumbnail-ka iyaga oo taabto. Haddaba sidee loo sameeyaa? Muuqaalkan ayaan kugu tusi doonaa. Intaanan muuqaalku guda gelin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalkan ay noo qurxiso like inoo saarto. Haddaba aan u guda galno muuqaalkeena maanta. Si aan u sameyno thumbnail cajiib waxaan adeegsanaynaa application-ka PixArt. Marka hore application-ka PixArt ayaad soo furinaysaa, kabacdina qaybta balaaska ayaad ku dhufanaysaa. Kabacdina waxaad ka dooranaysaa qaybta balankiga ayaad ka dooranaysaa. Qaybta balankiga marka aad ka doorato oo aad gudaha imaado, qaybta balankiga marka aad ka doorato oo gudaha imaado, waxaad ku dhufanaysaa tools, kabacdina crop ayaad ku dhufanaysaa, kabacdina waxaad ka dhex raadinaysaa YouTube. YouTube-ka shape-kiisa ayaad ka dhigaysaa, kabacdina tigta ayaad saaraysaa. Kabacdi marka aad sidaas sameyso, waxaad soo qaadanaysaa qaybta sawirada ayaad galaysaa, waxaad soo qaadanaysaa graph ayaad soo qaadanaysaa, graph PNG ama graph nooc u ahaadaba ayaad soo qaadanaysaa. Aniga hadda graafka noocan ayaan soo qaadan doonaa sida hadda wada jeedaan. Graafkan ayaan soo qaatay, kabacdina aad ayaan dhahayaa, kabacdina waan soo dhaweynayaa oo shaashada ayaan la ekeysiinayaa. Marka aan shaashada la ekeysiiyo, kabacdi sidaad wada jeedaan shaashada la ekeysiinayaa, tigta ayaan saaraya. Waxaad ku dhufanaysaa kabacdi qaybta sticker-ka, kabacdina waxaad gelinaysaa qaybta searching-ka grid aad gelinaysaa. Grid markii aan gelino, grid fara badan ayaa soo baxay balse hal ayaad ka dooranaysaa midkii adiga markaas aad thumbnail ku hagaajinayso. Aniga hadda waxaan rabaa mid madow ah, midkan ayaan ka doortay. Kabacdina waxaan soo qaadanayaa oo waxaan la keenayaa qaybtan ayaan keenayaa. Kabacdina inta graph PNG gashay aan tirtiri doonaa. Hadda waan la ekeysiinayaa. Kabacdina waxaan tirtirayaa inta graph PNG gashay anigoo adeegsanaya remover-ka ama qaybta sare sida wada jeedaan wada aragtaan ama PixArt inta isticmaasho ay garanaysaa. Aan la ekeysiiyo oo wax yar wada sugno. kabacdi waxaad ku dhufanaysaa qaybta photos-ka ayaad ku dhufanaysaa, photos ayaad ku dhufanaysaa, add photos ayaad ku dhufanaysaa. Kabacdina waxaan soo qaadanayaa thumbnail-kan ayaan soo qaatay. Kabacdina qaybtan ayaan keenayaa oo waan soo dhaweynayaa wax yar, waan qalocinayaa. Kabacdina waxaan u yeeli doonaa shape ayaan u yeeli doonaa. Sida jeedaan shadow ma waxaan u yeelayaa hadda border ayaan u yeelayaa. Border-ka markii aan u yeelo waxaan ka dhigayaa 33 ayaan ka dhigay hadda. Kabacdi waxaan u yeelayaa shadow waa hoos ka gadaal sida jeedaan hoos ayuu yeeshay. Markii aad intaan sameyso, kabacdi waxaad soo qaadanaysaa qaybta waxaad galaysaa sticker-ka, kabacdi waxaad soo qaadanaysaa green light ayaad soo qaadanaysaa. Green light markii aad soo qaadato, hadda sida wada jeedaan green light badan ayaa soo baxay balse mid ayaad ka dooranaya. Hadda midkan ayaan ka doortay, midkan qaybta sare ka muuqda ayaan dooranayaa. Midkan ayaan dooran doonaa. Kabacdina waxaan geynayaa qaybta sare ayaan geynayaa, waan weyneynayaa qaybta sare ee geeska ayaan geynayaa si PNG-ga uu u muuqdo mid aan lahayn wax meel uu ku dhamaado. Si aan u qariyo qaybtaas ayaan geynayaa amaba muuqaalka uu qurux badnaado. Markaan qaybtaas geeyay haddana waxaan qorayaa hand PNG, hand with phone ayaan qorayaa, hand with a phone, telefoon gacan hay si tale aan u muujiyo in thumbnail-ka lagu sameeyay mobile. Kuwo badan ayaa soo baxay oo waxaan ka dhex raadinayaa mid aniga choice-kayga ah. Hadda midkan ayaan ka helay, kabacdina midkan ayaan soo qaatay oo qaybtan geeska ayaan geynayaa. Hoos ayaan u wadayaa. Hoos markii aan u wado wax yar ayaan hoos sii yara waday. Kabacdi waxaan la ekeysiinayaa thumbnail-ka hoos ayaan u yara waday. Kabacdina qaybta sticker-ka ayaan galayaa. Kabacdina waxaan soo qaadanayaa red light ayaan soo qaadanayaa. Red light ayaan hadda soo qaadanaya sida wada jeedaan. Red light ayaan soo qaadanaya, way badan yihiin balse aniga hal ayaan ka dooranayaa. Kabacdina waxaan kor keenayaa mobile-ka gacanta saarneyd. Kabacdina qaybtaas layer-ka ayaad ku dhufanaysaa, mobile-ka ayaad ka soo hoos marinaysaa si red light-ka uu mobile-ka ugu hoos maro. Hadda sida wada jeedaan red light-ka mobile-ka waan ka hoos mariyay. Kabacdina text-ga ayaan ku dhufanayaa oo waxaan qorayaa professional ayaan qorayaa. Hadda sida wada jeedaan professional markii aan qoro color-ka cadaanka ayaan ku daynayaa professional-ka. Kor ayaan u qaadayaa. Kor markii aan u qaado sida wada jeedaan kor ayaan u qaadayaa sida wada jeedaan. Kabacdi kor ayaan u qaadayaa. Kor markii aan u qaado haddana waxaan qorayaa text-ga ayaan kusoo laabanayaa. Waxaan qorayaa thumbnail ayaan haddana qorayaa sida wada jeedaan. Thumbnail ayaan qorayaa. Thumbnail color-kiisu waan bedelayaa oo waxaan ka dhigayaa cagaar ayaan ka dhigayaa. Thumbnail-ka waan bedelayaa oo waxaan ku dhufanayaa qaybta color-ka, kabacdina cagaar ayaan ka dhigayaa. Kabacdina waxaan la ekeysiinayaa ama geeskan ayaan wax yar usoo yara wadaa sida wada jeedaan. Geeskan wax yar ayaan usoo waday. Aniga duqeyga hadda ayaan sameynayaa balse qof walba duq ayuu leeyahay. Kabacdina sticker-ka ayaan ku dhufanayaa. Sticker-ka wuxuu dhahay hadda limited ayuu dhahay.
sticker-ka lama raadin kartid waxyaabahaas ayuu soo qoray. Sticker-ka hadda wuu galay laakiin ilaa ma ahan inuu soo qaadan doono sababtoo ah red arrow markii aan dhaho wuu soo bixinaya balse wuu diidaya oo wuxuu leeyahay it's not taken ayuu leeyahay ma soo qaadanayso. Sidaad u jeedaan wuu diidan yahay oo ma soo qaadanayso. Arrows-ka hadda waxaan ka raadsanaynaa aniga hadda halkan markii aan ka waxaan ka raadsanaynaa photos sida dhexdeeda ayaan ka dhex raadinaya waa igu dhex jirtaa sidaan aan filayo. Haddii aad u baahan tahay waxyaabahan group WhatsApp ayaan soo dhigay dhanka description-ka waxyaabo fara badan ayaad ka helaysaa. Kabacdina aad ayaan dhahayaa waxaa ii soo gashay hadda white arrow ayaa ii soo gashay oo waan rabaa white arrow waa mid muhiim ah. Kabacdina sidaad u jeedaan hadda sidan ayaan sameynaya oo waxaan thumbnail-kii professional thumbnail-kii ayaan kusoo aadinaya kii aan hadda gadaal ka keenay. Sidaad u jeedaan boom wuxuu kusoo baxay thumbnail qurux badan. Waad samaysan kartaa thumbnail-kan haddii aad tahay YouTuber iyo haddii aadan ahaynba. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Hada wasalaam, peace and love.